Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our YouTube channel Osman Banjar for studying the English language. Kusoo dhawaada janaalkeena ee barashada luqadda English-ka. Haddii aad ku cusub tahay subscribe aho. Haddii aad horey noola joogtay haddii aad cusub tahayna like-ta, commentigan insha Allah. Su'aalaha aan ku weydiin doono insha Allah aga soo jawaab. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 26 ka hor intaan qaadan casharkeeni 26 marka hore waxaan idin weydiinayaa su'aalaheeni caadiga ay taxana ahay. Su'aasha koowaad oo maanta aan ku weydiinayo waxa weeyaan su'aasha koowaad waxa qoraysa okay, goormeed dhalatay. Su'aasha koowaad waxa weeye goormee dhalatay. Su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxa weeyaan inaad qortid goormeed ku soo biirtay janaalka Osman Banjar. Goormeed ku soo biirtay janaalka Osman Banjar. Labadaas xabo inaad fahamtaa umaleynaa labadaas su'aal. Okay, basic conversation keena maanta waxaan ku qaadan doonaa casharkeeni 26 lesson 26 where halkee. Where waa halkee. Where ejta laguma dhawaaqayo laakiin waa qora waa WHERE. Where waa halkee. Okay, marka erayada nagu cusub markaan fiiriyo maanta waxaan qaadanaynaa erayga koowaad oo ah live ama eraygan waxaa kaloo loogu dhawaaqaa life iyo live. Okay, live markii la dhaho waa ku noolaasho. Life markii la dhahana waa muuqaal toos ah oo live ah. Okay, life kala jirta oo ah LIFE, life iyo life ay kala yihiin. Life tan waxa waaye waa nolosha. Life tan waa nolosha. Tan markii laakiin live lagu dhawaaqayo waa ku noolaasho. Life markii la dhahaayana waxa weeyaan waa muuqaal toos ah. Eraygaas ina ila fahamteen aan umaleynaya. Erayga kala soo qaadanayna waxa weeyaan waa pray waa duceysasho ama dukasho. Okay, waa pray waa duceysasho ama dukasho. Pray waa duceysasho ama dukasho. Waa pray. waa isla fahamna taas. Prayer marka aad horto prayer waa salaada. Aarta dambe kuma dhawaaqaysid. Prayer waa salaada. Waa prayer waa salaada. Markii s lagu daro maxay noqonay prayers. Prayers waa salaadaha. Waa prayers waa salaadaha. Okay, waa isla fahmay taas. Eraygan kale waa mosque waa masaajidka. Mosque waa masaajidka. Waa MOSQUE mosque waa masaajidka. Okay, eraygan kaleenta waa home waa guriga. Home waa guri. Home meeshaad ku nooshahay ama deegaan ahaan ama wadan ahaan. Wadankaaga home waa dhihi kartaa my home wadankayga. My country wadankayga. Okay, home waxaa kaloo dhihi kartaa halka aad ku nooshahay. Home waa guriga. Okay, home waa guriga. Waa HOME. House waa soo aragteen. Okay, intaas waa isla fahamnay. Intaas waa maanta nagu cusub wax kale ma jiro. Okay, waxaan leenahay marka where. Okay, where ayaan qaadanaa basic conversation ka bilaabana. Where halkee. Where toos maris. Where aleda. Where halkee baad. Were you adigu born ku dhalatay. Casharkii shalay su'aalihiisa waa idin weydiiyey. Hadda isku day marka casharka shalayna haddii aad rabtid dib u raaci kartaa. Okay, where halkee baad. Were you born aad ku dhalatay.
Where were you born? Where were you born? halkeed ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay in meeshaad ku dhalatay sheegay mar. I was born in Mogadishu. aniga waxaan ku dhashay Muqdisho. I was born in Mogadishu. haddaad ku dhalatay Hargeysa, you can say I was born in Hargeysa. Okay, I was born in Mogadishu. waxaan ku dhashay Muqdisho. Where halkeebaad do you adigu live ku noosha? Where do you live halkeed ku noosha? Where do you live amris? Where do you live halkeed ku noosha? Question mark ka tagin. I anigu live in waxaan ku dhex noolahay Hargeysa. I live in Hargeysa. Hargeysaan ku noolahay. Where halkeebaad do you adigu learn ka barataa English? Where do you learn English? halkeed English ka barataa? I learn English waxaan English ka barataa at meesha ka baratida sheegay Osman Banjar YouTube ka Osman Banjar baan ka bartaa. I learn English ka waxaan ka bartaa at Osman Banjar YouTube. I learn English at Osman Banjar YouTube Osman Banjar baan ka bartaa. Where halkeebaad do you adigu pray ku dukataa the prayers salaadaha. Where do you pray halkay ku dukataa the prayers salaadaha? I anigu pray waxaan ku dugtaa in the mosque masaajidka. I pray in the mosque waxaan ku dugtaa masaajidka. But laakiin sometimes mararka qaar at home gurigan ku dugtaa. I pray waxaan ku dugtaa in the mosque masaajidka, but sometimes at home laakiin mararka qaar waxaan ku dugtaa guriga. Okay, masaajidka in lagu dugtaa fadli badan oo aad jamaaca kula dukatid. Okay, haddii aadan karaynin guriga laakiin masaajidka ka xasanaad iyo ajar badan. Okay, waxaan galeynaa marka waan ku sii soconaa. waxaan leenahay where is your sister walaasha? My sister walaashay is waa at mid joogta home guriga. My sister is at home. At meeshay joogta sheega at school. At home guriga. At work shaqada. Work shaqada. Okay, my sister walaashay is at home guriga joogta. intaas waa isla fahmay marka. aan ku celiyo mar kale. Where were you born? halkay ku dhalatay? I was born in waxaan ku dhashay Muqdisho aan ku dhashay. Where do you live? halkeed ku nooshaa? I live in Hargeysa. Hargeysaan ku noolahay. Where do you learn English? halkeed ka bartaa Englishka? I learn English ka waxaan ka bartaa at Osman Banjar YouTube ka Osman Banjar. Where do you pray? halkeed ku dukataa? The prayers salaadaha. I pray in the mosque, but sometimes at home. I pray in the mosque masaajidkan ku dugtaa, but sometimes laakiin mararka qaar at home gurigan ku dugtaa. Where is your sister? aaway walaasha? My sister walaashay is at home gurigay joogtaa. Bye, nabadgelyo. Okay, bye, waayahay nabadgelyo. intaas waa isla fahmna marka cashirkeeni maanta a basic conversation about where. halkaas aynu kusoo gabagabeynayna. haddaa janaalku cusub tahay subscribe dhaho, ardayda jecel u share garay. haddii aad nagu cusub tahay, haddii ardaydeen hore tahana nagu soo biir balan qabso. haddii aad rabtid conversation inaad samaysid maalinta sabtida iyo axadda. waa anigoo teacher Osman Abdulqaadir Banjar waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.